muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta madaniga ah waa inay saldhig u tahay tiirarka horumarka ummadda gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo amnigaba iyadoo laga ambaqaadayo in diiwaangelinta madaniga ay gundhig u tahay marjiciyadda asaasiga ee muwaadinka laga bilaabo marka uu dhasho ilaa uu ka geeriyoodo oo ay ku jirto warqadda dhalashada kaarka aqoonsiga shahaadada guurka shahaadada furiinka kaarka qoyska iyo shahaadada dhimashada waxaa jira oo suugaanta Soomaaliyeed ku jirta hees ereyadiisa uu lahaa Allah u naxariistay abwaan Sulub Cumar Axmed oo ay ku luqeeyeen xasan aadan samatar iyo Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Magool heestaas waxay leedahay gabar yahay war xiiso leh oo nacas xusuusnayn xuubka aan ka qaadee dawlad xora inaan nahay dadkeennuba xisaabnayn oo xoolaheenniyo dadkeennuba xisaabnayn xaq alliya madowba marka waxay leedahay maya wuxuu leeyahay xaddiga kow dadkeenna waa tirada guud intee xaas la koriyaa yaa xaas leh intee xoog shaqeeyaa leh dhalinyarada shaqaysaa waa imisa intee xaraf tacliin dhigan imisa waxbarataa loola jeedaa intee baa xanuun qaba yaa xanuunsanoo isbitaallada taga imisa xabaal galay dadka dhintay sheegaysaa intee xayiya oo nool intii soo hartay intee xarun magaalooyinka yaa degan intee baa miyiga xula imisa miyiga degan ayaguna tirkoobka amale haddii aan xog loo hayn sidee baa loo xanaanayn ayuu su'aal way dheer tahay kadibna xoolihii baa la gelayaa arrintaasi marka heestaasi waxay soo koobaysaaba يعني سيد لو جبها هي تركوبك وحين الديوان قليو ديوان قلين تبدنيجا ما أنت بدن ضيوه وكنا الدلكين وحايد الشان هدنا يدنتان يجو أنا هبيراتي قلين واحد ديوان قلين رسمية دولتنا أنا حسابنين وأنا دباتات قياسي كرتان أنت اللي أكتاه هذا بقى نظام كذا دقيستا كشقي ميلها قار دلكا وأنا اسكو حرنين دعدوين كمهم كهدتك أن لو ديوان قلين إسلام كان أي دعان لقما في ليه إنه كجواب سؤالها حكومة الفدرال كصوماليا سياسة دي أيان سي أغسطس لبكون يلواتني كو وهذا هي 60 دمانتين وحاي هجيسا سيدي دل كان لوغا دقنقلين لها نظام ديوان قلين كجوابي كرا سؤاله فنانين تسويديين سنة كدي مركي الأنسيحية سياسة هرمر في عنايا لقى سميي هرقلين تيدا كحولات كفرسمو سياسة لسه سنة وحاو قبطي شقبضان ويودن بيسي كلنكي دعاي بلوغي بشي أكتوبر اللوغو الحاريي كلنكي قدقى حقيدة ديوانقلين تمدنيقى وكلن كان وين وهير وزيره ياغاسمياش قود قدقى حقيدة ديوانقلين تمدنيقى iyo statistics-kada muhiimka oo ka kooban dhammaan hoggaanka sare ee hay'adaha istiraatiijiga u ah hirgelinta nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistics-kada muhiimka waxa ka mid ah guddigaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha hay'adda statistics-kada qaranka hay'adda socdaalka iyo jinsiyada hay'adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir intuba hadda badankoodu way joogaan qaarna way soo socdaan waana kulankii koowaad oo qabsooma iyo daneeyayaasha caalamiga ah ee taageera ee halkan isugu yimid waxa maanta uu fadhiyaa inuu arko wixii qabsoomay tilmaamo meesha la aadayo keenana dhaqaalihii loo baahnaa
waxaa intaa dheer in sharciga gundhiga u noqon lahaa howlahan uu marayo marxalad gabagaba ah sidoo kalena la diyaariyay habraacyadii loo mari lahaa howlaha diiwaangelinta madaniga sida dhalashada guurka furiinka iyo dhimashada oo waafaqsan siyaasadda qaran ee diiwaangelinta madaniga iyo waliba sidii loo midayn lahaa noocyada caddaymaha shahaadooyinka iyo foomamka xog ururinta waxaana aan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan howlahaasi lagu dhammaystiro hirgelinta nidaamka diiwaangelinta madaniga ah oo casri ah ayaa ka caawin doona dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed bixinta iyo helidda adeegyo hufan nabad iyo xasilooni baahsan dalka Soomaaliyana ula jaan qaadi lahaa dalalka kale ee daafaca caalamka sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa inaan helno barnaamijkii digitalka ahaa ee hawshan fududeyn lahaa hirgelinteeda waxaan rajaynaynaa in hirgelinta nidaamka casriga ah lagu bilaabo ugu yaraan 30 degmo oo dalka ka mid ah oo tijaabo ay noqdaan kadibna haddii tijaabadaas lagu guuleysto in horey looga socdo waxaan u mahadcelinaynaa guddiga farsamada ee fulinta siyaasadda qaran dadaalkii ay muddada sanadka ah ku bixiyeen isku xirka hay'adaha shaqadan ay khusayso iyo diyaarinta shuruucdii iyo qorshayaashii laga maarmaan